صاحب هذا بيجك كعصب طحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. ما أنت هدي إلى هير هذا وحنا بلا بني تعالى عصب oo aan ugu magac darnay afareyda guusha nolosha. qof walba oo adduunkan ku nool wuxuu doonayaa inuu guuleysto. haddaba si aad u guuleysatid waa inaad ku guuleysato afar dhinac oo noloshaada ka mid ah. kow waa inaad ku guuleysato qofnimadaada. labo waa inaad ku guuleysato xiriiradaada iyo calaaqaadka aad la leedahay bulshada kale. saddex waa inaad ku guuleysato waxqabadkaaga oo aad noqoto qof leh waxqabad. afar waa inaad ku guuleysato aakhiradaada. qodobadan afarta ah mid walba wuxuu ka sii farcami doona afar qodob oo kale. waxaan ka bilaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo qofnimada ama guusha qofnimadaada. guusha qofnimadaadu waxay leedahay afar mabda. mabda'a koowaad wuxuu leeyahay adiga ayaa mas-uul ka ah wixii kugu dhacay. taa macnaheedu waa maxay? haddaad guuleysato adiga ayaa guuleysay oo guushaada sabab u ah. haddaad guuldareysatayna guuldaradaada adiga ayaa mas-uul. waxba cudurdaar ha raadin, cid kalena ha ku eedaynin. adiga ayaa go-aansaday guuldarada. haddaad guuleysatayna adiga ayaad kasbaday oo dadaalkeedii la yimid guusha. waxba ha doondoonin takabaan aad surto guuldaradaada. marar badan waxaa laga yaabaa inaad maqashid arday waxbarashada ku fashilmay kadibna ka oranaya dalku waxbarasho ma lahan ama waxbarasho ma jirto ama macallin hebel ayaa iriday oo saas ugu karan iyo wax la mid ah. waxaas waxba kama jiraan. macallinku cidna ma rido, iskoolku cidna ma rido, adiga ayaa dhacay, go-aankaagana weeyaan. sidaa daraaddeed mabda'a koowaad oo guusha qofnimadu wuxuu qorayaa adiga ayaa mas-uul ka ah wixii kugu dhaca. mabda'a labaad waxaa weeyaan naftaada runta u sheeg. naftaada runta u sheeg. taa macnaheedu waa maxay? fariiso, naftaada shir la qaado, meel cidla teleefanada iska demi, isweydii anigu kumaanahay, maxaan rabaa noloshayda, maxaan ka rabaa calaaqaadkayga iyo xiriiradayda, maxaan ka damacsanahay, maxaan ku fiicanahay, maxaan ku liitaa, xaggeen ku xumahay, xiriirada dadka aan la leeyahay, dadla dhaqankayga, dabeecadahayga kuwee xun oy tahay inaan ka takhaluso, kuweese fiican, ceebahaygu maxay yihiin. waa inaad tirisaa ceebahaaga. waa inaad tidhaahdaa 1 2 3 4 cid aan ceeb lahayni ma jirto. الله سبحانه وتعالى موجي الدون كان واحد مخلوق نور قف والبعيب بوليه مركو أنا العيبها قد تقانا وياه. هذا العيب هذا أخون سيدي بدو داوين يسا. مبدأ حاجة أو صدحات وحوليه هي نقو قف له ربيتان. الدنيا ذو قوان ربيتان كانوا وادي قوان كذا. إن هذا وحربتوا ولا جو مارمان. هذا أدوب ربيتان لهين عد ربيتان كوسين كرتملا. أدوب هذا ربي نقول هدانا ربين هرمر، هدانا ربين شرف، هدانا ربين ضدنمو يا كوسين كر ومجر والوعى وين كنا وحى أدربتيد لكن عندنا ربيتان كومسين كر وحيابها قف كربيتان كوعى وين كر وحى كم ذا. أولا إنه يجري قفكو هدف إنه له شكلية، هدف يا قضية أد الناشح وحى دوني سئنا الحقيقي سوين جيران. لابو وهنا للصاحبتها أو تكو حرنتها dadka bulshada ka dhex muuqda ee leh hanka sare guuleystay. dadkaas la socodkooda iyo la saaxiibidooda waxay kugu caawinaysaa inaad yeelatid doonitaan, rabitaan inaad yeelatid bay kugu caawinaysaa. sababtoo ah haddaad la saaxiibto kuwa liita fashilmay dee adna waad fashilmaysaa. saaxiibkan kuma caddeeyo kumana madoobeeyo laakiin wuxuu kaa dhigaa waxa asagu uu yahay. mabda'a afraad oo guusha qofnimada wuxuu dhigahayaa ha ku noolaanin jawaab celin. macnaheedu waa maxay? maalan haddii qof kugu xadgudbo ama khalad kaa galo inaad xanaaqdo, afxumo iyo gacan ka hadal aad samayso iyo inaad intaad ku qososho iskaga jeesato iskaga tagto waa adiga go-aankaaga. yacni cid kale go-aanka ma gaari karta arrintaas. adiga go-aankaaga weeyaan. ficilka aad samaynayso iyo jawaabta aad bixinayso waa adiga go-aankaaga. waa run qofka bini aadamku dareen buu leeyahay, wuu xanaaqi karaa, laakiin qaabka aad uga jawaabayso adiga go-aankaaga weeyaan. inaad xanaaqdo iyo inaadan xanaaqin, inaad caytanto iyo inaadan caytamin, inaad gacan ka hadal samayso iyo inaad sabarto waa adiga go-aankaaga. sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii ku yidhi rasuulka ilaahay oo ii dardaaran wuxuu ku yidhi ha caroonin. sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa caradu inay tahay wax anagu aan kontarooli karno.
haddaan la kontarooli karin xadiisku macno ma lahaadeen. marka mabda afraad ha ku noolaanin jawaab celin, sababtoo ah dareenkaagu waa gaar, jawaabta aad ka bixinaysana waa gaar. jawaabta adigaa mas-uulka ah, dhaqankaaga adigaa mas-uulka ah, adigaa kontarooli kara. waxaadna ogaataa waxa aad samaysay qab dhaqankaagu dadka kale ayuu saameynayaa. haddaad dhaqan wanaagsan kula dhaqantana dadkii way wanaagsanaan, haddaad si xun ula dhaqantana dadkii xumaantii ayaa u gudbaysa. afartii mabda halkaasay noogu dhammaadeen. waxaana halkaa noogu eg qaybtii koowaad ee casharadeenna taxanaha ah ee ku saabsan afarayda guusha nolosha. haddaad nagu cusub tahay ama casharka aad wax ka faa'iiday, fadlan ha iloobin inaad tiraahdo subscribe iyo inaad la wadaagtid asxaabta. waxaa kaloo muhiim noo ah inaad aragtidaada ka dhiibato, sababtoo ah dhiirigelin ayay noo tahay. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.